waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada بسم الله ما أنت عايش في الكوكب الأبيض حضرتك على types of radiation نوعية الشعاع حسب الحزب يقول يصح الصوقة أما يقصد بين الوالكاس ولا يدعو types of radiation والشعاع يسود أيام والحركة القلقة ما والحركة يدعو radioactive elements بحيث يسود أيام الشعاع سيوجد instability شعاع على صوصة هاي مصوصة أصبح ألفا بيتا يحكام صدح لنا راديشن هي اللي ممكن تيجي ستيج كل كنا قادر نوجدها لكن سحر صدح لنا راديشن ألفا بيتا حسب جرام مصاري قريني يجي بارتكلز جاما هاي تاي إنرجي أما ويف أفهم تلقي له مصاري كتير إلكترومغناطيسي ويفز جاما هنا كم ده هاي مثل كم ده إلكترومغناطيسي ويفز مكان جاما بحلا يراها ودول نيتشر مرة ويف أو شوية نقصها إنرجي ولا كام مرة كام وري أو ويف ولا إنرجي بيتا هي ألفا وبارتكل صوتها ماس نويلي تشارج نويلي هذا بقى unstable nucleus والنيوكليوسيد عند الجرين وحيسميها disintegrate معناها وبروبريس دي كده وبروبرا يكون صوت ديري غير ميت اما ان كفر او صدح نوع الراديشن وحيسو ديري هروات يوصل قادنا maxay u soo daayaan sababta radiation loo soo saaray ee warax radioactive element ama waxa ka falka sababta radiation u soo saaray waa maxay hore ma soo qaad way hadaba waxay soo deynaysaa mid ama in ka badan kaliya waa laba ee loo jeedaa saddex ma soo saaray laba nooc oo soo saaray xagga aan qaar doonaa mid ama in ka badan kaliya waa laba loo jeedaa mid ama laba nooc radiation isintay oo kamid ah saddexda waa kuwi waa alpha calaamada loo qaato calaamada alpha loo qaadana alpha loo qaato calaamada greega beta calaamada beta loo qaato iyo gamma radiation loo qaato calaamadaas saddexda nooc radiation la isintay labadan alpha iyo beta waa particles kana waa energy ama quantum energy waxa la yiraahdaa they emit two kinds of radiation simultaneously laba nooc oo radiation soo daayay wada jira marka waxa la waxa soo deeyay mid ama in ka badan waxa loo jeedaa laba loo jeedaa waxa soo deeyay laba nooc oo radiation waxa soo saaraya si simultaneous anay waa wada jira si wada jira maxaa la soo deeyay marka uu leeyahay si wada jira loo soo saaraya waxa la soo saaraa particle iyo ray laba particle marna la soo daraa maxaa ka hadlaya alpha waa particle gamma waa ray maxay saaray particle iyo ray beta waa particle gamma waa ray arkimesid in la israaciyo alpha iyo beta waa qal la isma raacin mar walba maxay israaciyo saxar iyo tamar way while the three types of radiation can be identified marka la kala saarayo saddexda nooc waxa loo kala eegaa properties kala wada ku dhigan doonaa waxyaabaha lagu kala eegaa penetrating waa awoodda ay kaga dusiyaan ku dhex marayaan ee wax kaga dhex bixi karaan ionizing ability awoodda ay wax ku darameynayaan ku ionizing hawada ama materialka ay dhex marayaan awoodda ay ku darameynayaan speedka ay u socdaan maaskooda cufkooda waa xawaaradooda waa cufkooda waa nooca charge ama darada ay leeyihiin iminka saddexda kan waa positive chargekiisu kan waa negative kana ma laha charge waa iyo saameynta ay ku yeelato magnetic field ama
ama electric field marka la dhaxlayo oo sidii electric field u saamaysa magnetic field oo saamaysa waa inoo soo socota sidii electric field iyo magnetic field u saameeyo haddaba marka la kala saaray saddexda nooc ee radiation waxyaabaha loo eego criteria ama waxyaabaha loo eego kala saaristooda waxaa ka mid ah awoodda dusida saddexdooda isku awood ma xagga dusida xagga darmaynta isku awood ma xawaaraha isku mid ma cufkooda isku mid ma darabkooda isku mid ma saamaynta electric field iyo magnetic field ku leeyihiin isku mid ma waayo balaaka waxaa soo qaadanaya waxaa la yidhaahdo proliferating power of these three types of radiations awoodda tusileed ee saddexda nooc ee radiations awoodooda tusileed isku mid ma alpha iskinkaaga qabanaya shaarkaaga qabanaya waraaq baa qabanaysa thick sheet baa qabanaysa waraaq qarada qabanaysa waa alfada beta iskinka way gelaysaa shaarka waa ka dhex baxaysa laakiinse maxaa joojinaya aluminium weliba aluminium baa waxaa aluminium qabadeeda tahay 5 mm kana waa thick sheet waa waraaq qarada la joojinaysa kana aluminium nuucdeedu tahay ilaa iyo 5 mm waa beta alfada maxaa joojinaysa waraaqa beta maxaa joojinaya aluminium gaama toos oo wada dhex baxaysa ilaa leh gaamada maxaa joojinaya baa la yidhahdaa concrete dhumucdiisu tahay 1 meter thick waxaa joojin karaa concrete ama sabab dhumucdeedu tahay 1 meter waana ugu bahaaro warshadaha nuclear-ka reactorska qaybta reactorka ka dhaco vision ama burburku uu ka dhaco waxaa lagu dahaaraa sabab markaa sabab dhumucdeedu tahay 1 meter ayaa lagu dahaaraa halka maxay iga muuqda saddexdii nooc ee radiation alpha waxaa joojinaya waraaq qarare ama iskinka ama shaarka beta waxaa joojinaya aluminium dhumucdeedu tahay 5 mm gaama waxaa joojinaya wax intaba way ka dhex baxay saddexdii laakiinse maxaa joojin karaa sabab dhumucdeedu tahay 1 meter qaraahi ama ka weyn waayo saamaynta haddaba ay electric field ku leedahay radiation effects of the electric field on the radiation saamaynta electric field ku leedahay radiation iska saddexda marka laga hadlayo electric field waxa la soo qaatay laba plate kana waa positive kana waa negative labadeeda gacmood gacantaasina waa positive tana waa negative sidaas loo dhigay labada gacmood dhexdooda waxa la dhex marinaya saddexdii nooc ee radiation-ka saddexda horta labada gacmood waxa u dhaxeeya halkani markay tahay positive tana ay tahay negative inta u dhaxaysa space-ka u dhaxeeya waxa yaala wax loo yaqaan electric field lines kuna maxay ka imanayaan from positive to negative waa tad form 3 gi ku soo dhigateen markay halkani tahay positive plate halkanina ay tahay negative plate electric field lines waxa ka imanayaan from positive to negative halkana waa electric field halkana waxa la oranayaa electric field haddaba electric field ka marka radiation la dhex mariyo maxaa dhacaya marka radiation la dhex mariyo maxaa dhacaya waxa dhacaya hadda baartayo halkani waa positive plate halkana waa negative plate inta u dhaxaysa waa inta u dhaxaysa intaas waxa weeye waa electric field bay leedahay bedadana bay leedahay way dhageysa hadda baartayo beedista radiation-ku marka uu electric field-ka dhex marayo waxa go'aamiya charge-ka maxaa go'aamiya charge oo sidoo go'aaminaya ka positive wuxuu u beerayaa negative plate-ka ka negative-ina wuxuu u beerayaa positive plate-ka gaamana mana laha charge mana laha mass toos bay ka dhex baxaysaa baleegartayo halkani waa radiation source waa bartii shucaaca soo deynaysa way wuxuu soo daayay saddexdii nooc radiation beta xaggana u baydhay why ay beta halka ugu baydhay eegartayo maxaa beta halka geeyay the beta waa negative waxa jiidanaya positive-ka phone 3 waxa ku soo dhigatay phone-kiiniba unlike charges attract beta waa maxay waa positive waa negative baan u jeedaa beta maxaa soo jiidanaya ama ay u baydhaysaa positive plate alpha waa positive waxa soo jiidanaya negative plate gamma toos buu ka baxday because waa no charge ma laha charge haba yaraata wax charge ay leedahay ma jirto marka deflection-ka uu shucaacu
uu leeyahay marka uu dhex marayo badada danabka waxa go'aamiya nooca charge-ka kii positive aha wuxuu bayrayaa negative-ka alpha oo positive maxay u bayray negative-kii beta calaamadaas waa maxay waa beta calaamadan maxaa la oranayaa waa beta tan maxaa la oranayaa waa alpha calaamadan maxaa la oranayaa waa gamma halka marka maxaa kaaga muuqdo marka ardayo alpha waa positive waxa soo jiitay negative plate beta waa negative waxa soo jiitay positive plate gamma waa no charge toos bay uga dhex baxaysaa bal saddexda qodob ee beta is a negative and it is attracted towards a positive plate beta waa negative ama particle kan ama saxarka la yiraahdo beta waa negative waxana soo jiidanaya qotinka positive ka waay bal xagan u qaale alpha waa positive waxa soo jiidanaya qotinka negative ka wata halka maxay iga muuqda alpha waa positive mar haday alpha positive tahay maxaa soo jiidanaya negative plate gamma is not deflected gamma lama weecinayo ama lama beedsiinayo ama lama qaloocinayo sababtu waa maxay malaha charge deflectionka electric fieldka deflectionka radiationka ama baydhista shucaac marka uu dhex marayo badadanabeed waxa ka masuula charge mar hadaanay gamma lahayn charge haba yaraatee wax baydhisa oo ay sameynaysaa ma jirto si street uga dhex baxaysa X-ray-guna waa sidaas leeg marka gamma is not deflected because it has no mass and charge mass na malaha charge na malaha baydhista ama saameynta magnetic field-ku ay ku leedahay radiation saameynta badada birlabku ay ku leedahay shucaac oo sida u saameysa marka waa tan magnetic field-ki xariijimahan cross-ka u taagan waa magnetic field-ka direction-keeda marka la sheegayo mar waxa loo qaataa cross oo u taagan into the page waa maxay xaqiinaas ah north xaqana waa maxay waa south marka magnetic field-ki waxay galaysaa page-ka waa into the page markay xaqani tahay north oo xaqiina u soo baxaysan maxaa la oranayaa sida imka suulkaygu soo jeedo waxa la oranayaa out of page oo dhibic baa loo qaataa imka marka tani waa cross waa into the page magnetic field-ki waxa u taagan cross-kaas waxa u taagan halka ilaa halkaas waxa u taagan magnetic field-ki waay deflection-ka shucaacu marka uu dhex marayo badada birlabta waxa ka masuula maaska oo sidoo maasku uga masuuliyay waatan tiimaas aan lahayn toos bay uga dhex baxaysaa waatan gamma malaha maas gamma waa maxay waa no mass waa no deflection wax baydhi soo jirtaa ma jirto beta waa less mass waa markiiba la qaloocinaya alpha na waa more mass oo wax yar baa la qaloocinaya bal ay gartayo qodobka koobaad alpha waa culays marka loo eego kuwa kale waa ayo waxa weeye waa beta iyo gamma because alpha waa helium nuclear beta na waa maxay waa fast moving electron gamma na malaha mass marka lagu leeyahay waa culays marka loo eego kuwa kale la sheegaya waa ayo de waa labadan waa beta iyo gamma hadii lagu leeyahay culustahay qalinkan kama cusla ee cid ay ka culustahay waa labadan kale alpha marka waa culays baa lagu marka loo eego kuwa kale waay so it has more mass waxay leedahay cuf badan more inertia wahsi fara badan so it is reflected less in yar baa la qaloocinaya maxaa la qaloocinaya wax yar baa la qaloocinaya marka ay wataad aragtaan maxay ku dhawaatay inay ka baxdaba in yar baa la qaloociya alfada qaabka labaad ee ku heli kartid xagga ay alfadu u baydhayso waa adigoo adeegsada waxa loo yaqaano Fleming's left hand rule adoo adeegsada sharciga Fleming ee bidixda waa kan sharciga fontugiina waa ku soo dhigateen saddexdan farood soo eeg suulku waa motion ama waa xagga ay u baydhayso fartaasi waa magnetic field direction-ka fartana waxa weeye waa karanka imika beta waa positively charged particle marka waxa looga soo qaadaya inay tahay karankii beta maxaa laga soo qaadaya inay tahay karankii fartana maxay tilmaamaysaa magnetic field-kii tanna waxay tilmaamaysaa xagga ay u baydhayso imika wata
magnetic field waa into the page wata fartaydaas farta koobaad maxay tilmaamaysaa xagga sabuurada u jeedaa Soomaa magnetic field waa into the page beta xagee ka tagaysa radiation source-ka sidaas u socotaa Soomaa deflection-keeda kor buu noqonaya kor bay u baydhaysaa wata kor u baydhay alpha baan u jeedaa alpha maxay samaysaa kor bay u baydhay eegardayo marka kan waa maxay suulku waa direction-ka deflection imika fartan waa magnetic field fartan waa maxay waa direction-ka alpha alpha waa positively charged particle waa xagga ay alfadu u socoto weey alpha waa maxay waa positively charged particle so eeg hadda ardayo eeg ota suulkay fartaydaas maxay u jeedaa into the page xaggana waa xaggii u socotay alpha deflection-keeda kor buu noqonaya waay beta waa less mass because mass-keedu waa mass-ka electron-ka waxay leedahay less energy markiiba waa la soo qaloocinaya imika hadii gaari weyn oo kuwan xamuulka qaada ee gaari yar oo taxi ay goolad ka wada laabayaan de sheyga weyn waa more mass waa more energy long round buu soo qaadanaya goolad dheer buu soo qaadanaya sheyga waa less mass waa less energy markiiba meel dhow ka qalloocsamaya ama ka baydhay marka beta waa less mass waa less energy waxay sameynaysaa markiiba waa la qaloocinaya more deflection bay sameynaysaa intay baydhaysaa badan gamma malaha mass mana laha charge so wax qaloocsin ama baydhiso oo ay ku imanayaan ma jirto si toos ah ka dhaxbaxsan bal hadaan idin soo khulaasay arday halkani waa radiation source-ki intani waa magnetic field-ki waxay soo deshay radiation source-kana saddexdii nooc ee radiation waa alpha beta iyo gamma su'aashu waxa weeye muxuu kan xaggan ugu baydhay muxuu kan markiiba u baydhay muxuu kan in yar u baydhay kana muxuu u baydhi waayay kan waa less mass waa less energy markaaba waa la soo qaloocinaya kan waa more mass waa more energy waxay u baahan tahay xoog fara badan oo qaloociya kanina mana laha charge mana laha mass alpha xagga ay u baydhayso waxaad ku helaysaa sharcigii la oran jiray Fleming's left hand rule waatan suulku wuxuu ku tilmaamay xagga ay alpha u baydhayso farta koobaad waa xagga magnetic field direction-ka farta labaadna waa xagga ay alfadu u socoto imika magnetic field-kaygu waa into the page wata fartaydii koobaad waxay u jeedaa xagga sabuurada alfadii xaggaas u socota deflection-keeda kor buu noqonaya wata alfadii maxay u baydhay kor bay u baydhay beetadina maxay u baydhay hoos gaamadina toos bay uga baxday qodobkan wuxuu ku sheegayaa magnetic field-ka direction-kiisa haday cross tahay waa into the page magnetic field-ka page-ka galaysa haday dhibic tahayna way ka soo baxaysaa cashirkeena maanta halkaas inoogu eegayay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh